maamulka degmada Xaraale odayaasha dhaqanka culimo-diinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa maanta deeq raashin ah gaarsiiyay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka Miirjecley ee hoostaga degmada Xaraale kuwaas oo dhawaan ka soo barakacay dagaal ka socday degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug. Gudoomiyaha degmada Xaraale Bashiir Daahir Yuusuf ayaa ka warbixiyay tirada raashinka la gaarsiiyay qoysaska danyarta ah isagoo baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Galmudug iyo dhammaan hay'adaha caalamiga inay caawiyaan qoysaskan soo barakacay. gaarnay dad qaxootiga oo soo barakacay oo Bacadweyne ka soo barakacay oo yimid Miirjecley dadka qaxootiga oo caruur leh oo odayaal leh oo hooyooyin leh oo dad fara badan oo cadadkooda dadkii meesha joogay ay noogu sheegeen ilaa 500 oo qof 500 oo qoys waa ay joogaan annagu Xaraale daaqa dadku wada dhashay Soomaaliduna waa istaageertaa boqolkiish oo reer Xaraale aan ka soo qaadnay oo isugu jirta bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo baasto iyo wax sidaas ah aan booro ayaan keenay dadka walaalaha aan nahay oo nala dhashay dibkuna soo gaaray dhulkoodiina ka soo barakacay baan soo gaarsiinay waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha dawladda federaalka tan Galmudug dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa in dadkaas inay ka soo gaaraan waa dad Soomaaliyeed waa dad dhulkoodii ka yimid waa dad 500 kiiloomitir ka badan soo barakac soo aha oo soo qaxayay in dadka loo soo gurmadaan dawladda ugu baaqaynaa dadka sokeeyaha oo ehelka oo degmooyinka jooga ugu baaqaynaa dawladda federaalka ugu baaqaynaa tan maamul goboleedka ugu baaqaynaa hay'adaha maxalliga ugu baaqaynaa annaguna hadda gacantii koowaad waa taagnay mana ku joogayna waanu laabanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Xildhibaan Cabdullaahi Ibrahim Ciise ayaa isaguna baaq u diray dawlad goboleedka Galmudug in si degdeg ah loogu gurmado dadkan barakacayaasha ah shalaan ka bacdi waxaan u baaqaynaa dawladda federaalka tan maamul goboleedka kulli dhammaantood dadkaas oo qax iyo barakac ku yimid Miirjecley ayaanu u soo gurmadnay annagu intii tabartaya ah ee maantana ay ahaan mayso annagu waanu la daba taagnaanaynaa haddii alla idmo intii aan heli karo iyo intii aan gaari karo degmooyinka iyo gobollada waxaan leenahay dadka walaalaha oo soo barakacay si degdeg ah in loo soo gaaro oo wax looga qabto arrintooda ayaan aad ugu baaqaynaa dawladda Galmudug khaasatan si degdeg ah inay ku soo gaarto meesha la Miirjecley oo dadka barakaca teer iyo meesha ay ka soo qaxeen bay daadsan yihiin waxaa jira dad oon iyo biyo la'aan iyo gaadiid la'aan iyo soo qaxay weey dadkan qof lugba ku soo galeen meesha xana baabuuray ku soo galeen dad dhexday ku soo jiraan habeen walba waa imaanaya meesha ay soo igsanayaan waxa weey waa Miirjecley iyo Xaraale inta u dhaxaysa ayay rabaan inay soo gaaraan ugu dambeyn gudoomiyaha deegaanka Miirjecley Yuusuf Maxamuud Aadan iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Miirjecley ayaa u mahad celiyay maamulka degmada Xaraale odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida wanaagsan ay ugu soo baxeen walaalahooda dhibaataysan iyagoona ka warbixiyay tirada qoysaska barakacayaasha ah ku soo kordhay qaxooti ka yimid degmada Bacadweyne iyo deegaamo kale oo hoos yimaada ilaa 7 barood ayaa ku soo kordhay dadkaas wadada cadadiisa la koobi kara ma aha waa dad hadda saacadan hadeer degahaya ilaa bilna ku socday meesha dad waxay soo guureen markii ay maaragtay cabsida maqleen dadna markii dambe meeshii la qabsaday iyo soo guureen hadeerna kuwa soo socda walaalaha yar reer Xaraale wayna soo booqdeen waana soo salaameen raashinna way keeneen boqolkiisho isugu jirta inta reer cuno oo bariis bur sonkor ana booro saliid way keeneen laakiin meesha hadda 500 lagu qiyaasay oo la yiri 500 way qiyaasto oo qoys waa cashay u taa casho waan codsanaynaa hay'adaha kuwa dawliga iyo kuwa maxalliga ah hay'adda dawladda federaalka maamul goboleedyada Galmudug dadka jaaliyadaha dibadda ku nool inay ka soo gaaraan dadkaas dadku wuxuu joogaa jiidaal diraac buu joogaa dadkuna waa shacab
waxaan dawladda ka codsanaynaa oo aan hay'adaha ka codsanaynaa oo yacnaha maaragtay dadka islaamka oo yacnaha maaragtay mas'uuliyiinta aan ka codsanaynaa annagu waxaan nahay dad shacaba oo jiidaal jooga oo xoolahoodu daac yihiin waxaa nugu soo siyaaday dadka qaxootiga oo Soomaaliyeed baa nugu soo siyaaday waxaan codsanaynaa oo aan dawladda ka codsanaynaa yacnaha maaragtay mas'uuliyiinta inay dadka taageeraan inay soo gaaraan inay hay'adahan codsanaynaa dawladdan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba inay dadkaas soo gaaraan baan codsanaynaa Xuseen Cali Xuseen Sab TV deegaanka Mirjicley